Assalaamu calaykum. Barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay cuntooyinkii uu aadka u jeclaa rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, kuwaas oo uu ka xushay dhammaan raashinka la cuno, mar walbana uu si joogto ah u cuni jiray, salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. Muslimka dhabta ah waa midka jecel waxa uu Alle jecel yahay oo uu raalli ka yahay wixii uu ka reebana ka reebtooma. sidoo kale muslimka dhabta ah waa midka jecel wixii uu jeclaa nebigiisa Muxamed sallallahu calayhi wasallam, wixii uu reebayna ka fogaada. Haddaba maxay ahaayeen cuntooyinkii uu doortay midkii ugu khayrka badnaa intii uu Alle abuuray sayidina Muxamed calayhi afdalus salaati wasalaam, iyadoo ay shaki ku jirin in cuntooyinkaasi ay ka wanaagsan yihiin kana faa'iido badan yihiin dhammaan quudka kale, gaar ahaan iyadoo intooda badan lagu xusay Qur'aanka Kariimka ah. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo aruurinay raashinkii soo jiitay suubanaheennii Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo ay naftiisu ku qanacsaneed. Laakiin inta aan gudagelin, fadlan ha ilmaamin inaad subscribe dhahdo kanaalka si aad noo dhiirigeliso, isla markaana furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gudbin doono insha Allah. Timirtu waxay ahayd cuntadii ugu badneed ee ku jirtay raashinka rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaana uu nagula dardaarmay inaan cunno oo aanan u daymo la'aan, iyadoo laga hayo inuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam: baytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluh. Guri aan timir oolin waa guri gaajo ama guri reerkiisu baahan yahay, waana xadiis saxiix ah. Aayado badan oo Qur'aanka Kariimka ah ayaa lagu sheegay geed timireedka oo ka mid ah geedaha jannada. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. waxaana sidoo kale ay leedahay faa'iidooyin fara badan. waxaana faa'iidooyinkaasi ka mid ah: timirtu waxay kaa saacidaysaa inaad hesho miisaan isku dheelitiran oo caafimaad leh, waxaana ay yaraysaa dhibaatooyinka dheefshiidka. waxay timirtu u fiican tahay wadnaha, waxayna yaraysaa calool fadhiga. waxay ka hortag u tahay dhiig-yarida. waxaa kaloo timirta ay jidhka ka saartaa maaddooyinka halista ah, waxaana ku jira vitamin B6, fiber, protein, iron iyo kuwo kale. Cuntada labaad ee uu jeclaa rasuulkeenna waa geedka tiinka, oo isaguna midhaha jannada ka mid ah, waana geed uu Alle ku dhaartay. والتين والزيتون وطور سينين. tiinka waxaa ku yar dufanka, wuxuuna u fiican yahay lafaha, isagoo leh faa'iidooyin caafimaad iyo fitamiinno dhowr ah sida vitamin A, B1 iyo B2. waxaa kaloo uu Alle ku manaystay geedkan faa'iidooyin kale. wuxuu baabi'iyaa afqarmuunka. waxaa kale oo tiinka lagu daaweeyaa hoos u dhaca raganimada, findoobka, dhibaatooyinka timaha iyo cudurka sonkorta. Qamadiga waa cunnada maalinlaha ah ee dhammaan bani'aadamka, wuxuuna leeyahay nafaqo fara badan, waana raashin la kariyo ama la shiido. waxaa kale oo uu qamadigu leeyahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin inuu firfircooni dheeraada siiyo maskaxda, isla markaana wuxuu xoojiyaa xusuusta. dadka qaba cudurrada beerkana wuu u fiican yahay, waxaana qamadigu uu xoojiyaa difaaca jidhka. waana cuntada keliya ee aysan ka baaqan dadka jidhka dhisa, waxaana uu yareeyaa cudurrada ku dhaca wadnaha. Canabka waxaa lagu sheegay Qur'aanka: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. waana midhaha uu Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam aadka u jeclaa, si joogto ahna u cuni jiray. waxaana faa'iidooyinka canabka ka mid ah inuu sifeeyo dhiigga, waxaana canabku uu xoojiyaa caafimaadka guud iyo kelyaha, isagoo jidhkana ka saara walxaha sunta ah. si gaar ah wuxuu canabka ugu fiican yahay indhaha, waxaana uu wadnaha ka difaacaa cudurrada, isagoo sidoo kalena leh vitamin C. Malabka waxay ila tahay inaan ka dheregsannahay faa'iidada malabka. haddii aan wax yar ka taabtana, waxaa Allah subxaanahu wa tacaala uu malabka ku xusay Qur'aanka Kariimka ah: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه wuxuu inoo sheegay inuu malabku dawo yahay. mu'miniinta ahlu jannada ah ayuu iyagana Ilaahay u ballan qaaday webi malab ah, taas oo ku tusinaysa faa'iidada weyn ee ku duugan. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu malabka cabi jiray subaxii, isagoo ku dari jiray biyo diiran. waxaana la isku raacsan yahay in marka malabka biyo diiran lagu daro uu u fiican yahay calool istaagga ama calool fadhiga. malabku waa cunto iyo cabitaan isku jira oo leh faa'iidooyin caafimaad oo fara badan,
sida inuu hoos u dhigo dhiigkarka, inuu xoojiyo difaaca jirka, inuu jirka ka saaro waxyaabaha dhibaya, waxaana malabka dadka macaanka qaba uu uga fiican yahay sonkorta caadiga ah. Rumaan, geedka rumaanka waxa uu qiimo weyn ugu fadhiyaa muslimiinta maadaama uu Allah subxaanahu wa tacaala ku xusay qur-aanka, waana miraha ay jannada dhexdeeda ku cuni doonaan kuwa Ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda uu jannada ka dhigay. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. waxaana alla weyne uu miraha rumaanka ku sheegay qur-aanka 3 jeer. rumaanku wuxuu u fiican yahay cudurrada caabuqa, kansarka, waxaana uu la dagaalamaa fayraska, halka sidoo kalena uu hodan ku yahay fitamiino dhowr ah sida fitamiin A, J iyo H. baaraabuf ama tuurin barbaar. baaraabuftu waxay ka mid tahay cuntooyinkii uu cuni jiray nabigeena sallallahu calayhi wasallam, waxaana ay leedahay faa'iidooyin ay ka mid tahay inay firfircooni geliso jirka. waxaa kale oo ay ka hortag u tahay noocyo ka mid ah kansarka, gaar ahaan prostate cancer, halka ay kaalin weyn ka qaadato difaaca jirka. saytuun. inkastoo dad badan oo Soomaali ah ay saytuunka u yaqaanaan geedka guavaha, haddana sida saxda ah saytuunku waa geedka la wada qiray waxtarkiisa, waxaana uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay tiro dhowr jeer ah, taas oo muujinaysa inuu yahay geed cajiib ah. waxaana loo cunaa dhowr qaab, iyadoo saliid caafimaad leh oo dunida laga yaqaanana laga sameeyo. saytuunka waxaa kaloo loo yaqaan tacaamul ambiyaa ama raashinkii ambiyada. rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallamna wuxuu nooga dardaarmay in la cabo saliidda saytuunka, jirkana lagu duugo ama lagu daliigo. waxaa la sheegaa saytuunku inuu dawo u yahay ilaa 70 cudur oo uu juudaanku ka mid yahay. faa'iidooyinkiisuna way fara badan yihiin, waxaana ka mid ah jirka ayaa ka hela tamar ama awood badan, waxaana qofka cuno u dareemaa dhereg yareynaysa inuu cunto fara badan cuno. waxaa kaloo lagu dabiibaa cudurrada lafaha ee kala duwan. wadnaha wuxuu ka difaacaa cudurro dhowr ah, halka dhiigyarida uu u wanaagsan yahay. waxaana loo aqoonsan yahay in saytuunku yahay cuntada keliya ee 5 qaaradood ee adduunka laga cuno. qaraha gaduudan. qaruhu wuxuu ka mid yahay qudaarta loogu jecel yahay caalamka ee ay dadka aad u isticmaalaan xilliyada kulaylaha, waxaana 91% uu ka kooban yahay biyo. wuxuu u fiican yahay fuuqbaxa, wuxuu ilaaliyaa kelyaha, wuxuu kaloo dawo u yahay kaadi ololka, wuxuu ka hortagaa kansarka iyo cudurrada wadnaha ku dhaca. qaruhu wuxuu hoos u dhigaa dhiigkarka, fitamiino badan ayuuna leeyahay. hilibka cas. nabigeenna suubanaa sallallahu calayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa cunista hilibka cas, wuxuuna hilibka cas leeyahay faa'iidooyin badan. wuxuu adkeeyaa difaaca jirka, wuxuu koriyaa lafaha, wuxuu hilibku yareeyaa walwalka iyo stresska, wuxuu jirka ka ilaaliyaa dhiigyarida, wuxuuna nidaamiyaa sonkorta jirka. bocorka. bocorku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka lagu xusay sunnada nabigeenna sallallahu calayhi wasallam, waxaana jira xadiis nebiga laga wariyey inuu Caaisha kula dardaarmay in haddii ay wax karinayso ay dheriga u badiso bocorka. bocorku wuxuu sida cunnada kale leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo ay ka mid tahay inuu rido miisaanka. waxaa laga helaa fitamiin A, wuxuu adkeeyaa difaaca jirka, wuxuuna u fiican yahay sonkorta iyo kansarka prostate-ka. laakiin cuntada la kariyo ee uu jeclaa nabigeenna Muhammad sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu sheegay 3 cunto. suqaar, athariid, waana raashin uu si weyn u jeclaa rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam. hilbahan cadadka ah ee suqaarka ayaana la sheegaa inuu ceesh iyo wixii la mida uu ku cuni jiray, waxaana cuntadani ay ahayd mid ay aad carabtu u cuni jireen xilligii jaahiliyada, waqtigii islaamka, ilaa maanta la joogana sidii ayaa loo cunaa. hilibka noocan loo sameeyo ayaa laga isticmaalaa dhammaan dalalka caalamka, hase yeeshee waxaa kala duwan magacyada loo yaqaano. waxaa kale oo uu nabigeenna sallallahu calayhi wasallam u jeclaa al-khasiira. waa hilib si yar loo jarjaray oo saliid, basal, yaanyo iyo biyo lagu kariyey, waxaana dusha looga daraa bur, iyadoo kadibna sidii maraqii ama shurbadii loo cabo. as-sakhiina ayaa iyadana ku jirtay cuntooyinkii nebi Muhammad sallallahu calayhi wasallam. waxay ka kooban tahay caano, bur ama ceesh la jarjaray oo lagu daray subag, waxaana iyadana loo isticmaalaa sidii shurbadii. haddaba weli ma tijaabisay cuntooyinkaasi macaan ee uu aadka u jeclaa suubanihii ugu sharafta badnaa intii uu Alla abuuray calayhi afdalu salaati wassalaam, kuwaas oo markii si cilmi ah loo baarayna dhammaantood la xaqiijiyey inay faa'iidooyin weyn u leeyihiin jirka bani'aadamka.